toddoba shay ama toddoba arrimood oo daciifiya ama yareeya xusuusta qofka. Xusuusta oo daciifta, ilowga badan ama maahsanaanta maskaxdu waxay ka mid yihiin xaalado dad badani ka cawdaan, lagana yaabo in qof kasta uu isku arko mar kaliya oo noloshiisa ka mid ahna ha noqotee. Waxaa dhacda inaynu weyno shay aynu doonayno, laakiin meel aynu dhignay aynu xasuusan kari weynay. In aynu ilowno hawl iyo waajibaad inoo yaalay, ama mararka qaarkood in ilowgeennu uu gaadho dadka inagu xeeran ama xidhiidhku inaga dhexeeyo. Qoraalkan waxaynu ku soo qaadanaynaa tiro ka mid ah sababaha ay xeeldheerayaasha caafimaadku sheegeen inay yihiin kuwa ugu badan ee saamaynta taban ku yeesha xusuustaada. Qanjo xanuun. Khalkhal ku yimaada shaqada qanjirka dhuunta ku yaala ee thyroidka loo yaqaano ayaa qofka ku keena xumad, jirodhaco iyo inuu qofku galo xaalad nafsiya oo tusaale ahaan warwar saa'ida iyo cabsi aanu garanayn sababteed. Dhakhaatiirtu ku taliyaan in qofku uu sida ugu dhaqsaha badan u daweeyo xanuunka qanjirka thyroidka. Heerkulka. Marka uu heerkulku bato, waxa kordha dhiigga ku burqanaya maskaxda, waxaanu saameyn ku yeeshaa shaqada maskaxda, gaar ahaan awoodda fikir iyo xusuuseed. Wuxuu qofku dib u soo xasuustaa awooddiisa xusuuseed marka uu kuleylku yaraado ama dhammaado. Hurdo xumo ama hurdo yaraan. Dadka aan helin saacado hurdo oo ku filan, sababtu waxay doonto ha noqotee, waxay inta badan isku arkaan dhibaato maskaxeed oo ay ka mid yihiin ilow iyo maahsanaan badan oo maskaxdu ku foofto meel aanay garanayn. Waxaa kaloo isku arkaan wahsi aad u badan. Si aad xaaladan uga badbaado, waxa fiican inaad goor hore seexato si aad u hesho saacado hurdo oo kugu filan. Qulubka. Isla hadalka, warwarka. Cilmi baadhisyo kala duwan ayaa xaqiijiyay in qulubku uu raad taban ku yeesho awoodaha xusuuseeda maskaxda. Qulubka iyo murugada badani waxay qofka si tartiib ah ugu keenaan khalkhal ku dhaca xidhiidhka unugyada dareenwadayaasha. Sidaa ogeed wuxuu qofku isku arkaa ilow iyo daciifnimo badan oo dhinaca maskaxda. Nasiib wanaag, xaaladan waxay qofka ka tagtaa marka uu ka baxo xaaladaas nafsiga ah ee qulubka ama murugada ahayd. Sigaarka. Sigaarku khataraha caafimaad ee uu keeno kuma koobna dhaawac uu gaadhsiiyo samabada, balse waxa uu gudbaa inuu dhaawaco maskaxda iyo awoodda xusuusta. Sigaarku wuxuu caqabad ku noqdaa inuu dhiiggu si nidaamsan oo caafimaad qabto uu ku gaadho maskaxda, taasoo sababta khalkhal ku yimaada laba shaqo muhiim ah oo ay maskaxdu qaban karto, sida isku dubaridka iyo gudbinta xogta. 6. Fitamiin yaraanta ama fitamiin la'aanta. Fitamiinka iyo macdanta kale ee jirku u baahan yahay haddii ay yaraadaan, waxay saameyn taban ku yeelan kartaa ama ay ku yeeshaan awoodda fikir iyo xusuusyada maskaxda. Waxaana maskaxda ku adkaata inay dib u soo celiso macluumaadkii ku kaydsanaa. bensound.com